بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر وهذا وربحين قارة وأنا كو إيجي إنه حرير كدينا روشكا إيه إسرائيل حلا إمدوين كودن بيه سرام مريسو شيغيستا إسرائيل إلا حريرته إن روشكا كومرت جلينيسو إنه دور كويشو guusha ay ka raadinayso dagaalka ay ka wado bariga dhexe gardarada ah Israel ayaa laga maqlay toddobaadii u dambeeyay si ka badan waqti kasto hore magaca Ruushka iyagoo markaa doonayay in Ruushku ka caawiyo waxa ay doonayeen inay ka sameeyaan bariga dhexe warbixintan ayaa macluumaad iyo falanqeyn ka siinaysa jawaabaha su'aalaha arrintan la iska weydiiyay oo ay ka mid yihiin suurtagal ma tahay in Ruushku ka caawiyo Israel qorshaha bariga dhexe ay ka leedahay Ruushku ma ogolaanaya inuu door dhexdhexaadin ah ku yeesho dagaalka Israel ka wado Lebanon miyuu ku qanci doonaa Ruushka qorshaha Israel ee ah inuu xiro dhaqdhaqaaqa ka dhacaya Syria iyo xadka Lebanon si uu uga hortago hubka uga imaanaya Hezbollah dhinaca Syria ugu horeynta Ruushka waxa muddo dheer kala dhaxeeya Israel xiriir diblomaasiyadeed waxaana Tel Aviv ka mid tahay dalal fara ku tirisa oo aan weligood cambaarayn dagaalka uu Ruushku ka wado gudaha Ukraine si la mid ah Ruushku ma soo jeedin hadallo ka dhan ah Israel intii uu socday duulaanka Israel ee marinka Gaza markasta waxa uu Putin laga maqlayay in xal loo helo xiisadda bariga dhexe balse wuxuu muujinayay sidoo xalku ugu jiro in la helo dawlad xor ah oo Falastiiniyiintu ay leeyihiin oo madax bannaan tani waxay la xiriirtaa wuxuu Ruushku sidoo kale xiriir dhow la leeyahay dhammaan dhinacyada Falastiiniyiinta ee marinka Gaza iyo daanta galbeed waxayna Moscow martigelisay dhowr wareeg oo wada hadallada oo ku raadinayay inay isu soo dhawaadaan dhinacyada Falastiiniyiinta si ay u raadiyaan dawlad loo dhan yahay oo yeeshaan dadka Falastiin kor inta aanan guda gelin suurtagalnimada uu Ruushku ku caawin karo Israel aan ku sii xaqiiqooyin carageliyay Ruushka oo ay ku kacday Israel muddooyinka ugu dambeeyay Israel ayaa isku muujisay inay doonayso inay la shaqeyso Ukraine ilaa bilowgii dagaalka socda 3 sano si qarsoodiha ayaa la sheegay inay Israel ugu lug lahayd iyadoo aan u bareerin taageerada Ukraine taa oo u ilaalisay inay sii haysato xiriirka ay la leedahay Ruushka balse waxaa jira dhacdooyin soo muujiyeen xiriirka Ruushka iyo Israel uusan ahayn mid wanaagsan muddooyinka ugu dambeeyay Ruushka waxa la sheegay si hoose iyo hab la arki karaba inuu la wadaagay Israel inay joojiso Mossad waa hay'adda sirdoonka Israel ee shaqeynta ay la shaqeynayaan hay'adaha sirdoonka iyo militariga Ukraine tani waxay la xiriirtaa hadallada ka yimid dhinaca Ukraine sirdoonka iyagu wuxuu si dhow ula shaqeynayaa sirdoonka Israel Andrei Yarmak oo ah madaxa xafiiska Zelensky ayaa hadalkan sheegay bishii Maarso 24 sanadkii 2022 waa bil kadib markuu bilowday duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine markaa wuxuu ahaa sargaalkii ugu horeeyay ee Ukraine ee soo bandhiga wada shaqeynta ay la leeyihiin sirdoonka Israel toddobaad kadib isla bisha madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa si cad u sheegay laamaha sirdoonka Israel iyo Ukraine inay bilaabeen iskaashi ku dhisan wadaaga sirdoonka iyo iskaashiga difaaca ee labada dal isagoo ku sheegay iskaashiga mid la arki karo ilaa waqtiga wax walba way wanaagsan balse marka ay wax xumaadeen waa markii la arkay howlgal ka dhacay gudaha Ruushka oo lagu beegay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka Ruushka dilalka ayaa u dhacay hab leh tiraaca howlgallada iyo fuliso Mossad mid ka mid ah dilalka ugu caansan ee la aaminsan yahay in Ruushku si cara leh uu la xiriiriyay Mossad waa dilka mid ka mid ah saraakiisha ciidanka badda Ruushka oo magaciisa lagu sheegay Stanfal Raktak xilli uu ka soo laabtay howlgal uu ka fulinayay gudaha Ukraine dilka wuxuu dhacay 6 subaxnimo maalin Arbaca ah 12 bishii July ee sanadkii 2023 waqtigaas gaalkan wuxuu ku jiray orod jimicsi ah oo ku sameeyay meel aan ka fogeyn garoonka Olympus Arena oo ku yaala magaalada taariikhiga iyo ganacsiga caanka ku ah ee Ruushka ee Krasnodar oo ku taala koonfurta dalka Ruushka howlgalka lagu dilay sargaalkan wuxuu ahaa mid gilgilay xarumaha sirdoonka Ruushka wuxuuna noqday dil ay liqi waayeen sirdoonka iyo militariga Ruushka ilaa qaar ka mid ah saraakiisha Ruushka laga maqlay in howlgalku ahaa mid ay ka qayb qaadatay Mossad oo taageeraysa Ukraine marka ay tixraaceen weerarada ay dibadda ka fulisay Mossad oo shabahay weerarkan wakaaladda wararka Ruushka Sputnik ayaa saacad kadib dilkaas soo gudbisay warbixin ay ciwaan uga dhigtay in wakiilada Ukraine ay raacayaan raadka Mossad dilkan iyo howlgallo kale oo lagu beegsaday saraakiil military wuxuu Ruushku ku dhaliyay tuhumka ah in Mossad ay balaarisay taageerada ay siinayso Ukraine si ay u fuliso dilalka dhaca gudaha Ruushka markii uu qarxay dagaalka Israel iyo Hamas bishii October sanadkii hore 2023 Ruushku wuxuu ku jiray dagaalka Ukraine muddo sanad iyo bar ah marka oo dagaalka ay ku soo bireen xulafada NATO oo taageeraya Ukraine oo xulafo la tahay Israel aragtida siyaasadeed ee Ruushka waxay dhalisay inuu isbedel ku yimaado xiriirkii Ruushka iyo Israel iyadoo Moscow ay u aragto in Israel ay qayb ka tahay xerada reer galbeedka marka oo Ruushku uu muujiyay inuu xoojiyo xiriirku la leeyahay ururka Hamas oo in ka badan 3 kulan ay saraakiisha Ruushka kula qaateen magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka xubno sare oo ka tirsan ururka Hamas
ilaa saraakiisha ruushka laga maqlay inay la yaabeen nooca weerarkii ay xamaas qaaday 7 bishii Oktoobar waqti hore oo 6 subaxnimo ah, iyagoo ku sheegay inuu ahaa howlgal ay wax badan ka baran karaan oo ku khasbaya sida ay sheegeen saraakiishu habka tactikada xerooyinkooda tababarka ee ciidamada inay ku soo dari doonaan sida loo qaadi karo loolana tacaali karo weerar lamida midka xamaas ay ku qaaday Israel. arrimahan ayaa ku dhaliyay in Israel banaanka u soo baxdo iyadoo cambaaraynaysa ruushka kadib markii war-saxaafadeed dhowr ay ka soo baxeen wasaaradda arrimaha dibadda Israel oo lagu cambaaraynayay kulan kasta oo ruushka uu ku martigeliyay saraakiisha xamaas. haddaba maxay tahay sababta Mossad ay iskaashi ula yeelanayso sirdoonka Ukraine? Israel iyo sirdoonkeeda ma aha ujeedada in iskaashiga Ukraine uu la xiriiro in Israel ay qayb ka tahay xulafada reer galbeedka ee hadda taageeraysa Ukraine. Israel dan gaar ah muhiimad u leh ayay ka leedahay Ukraine iyo sirdoonkeeda. danahaas oo muhiimad u leh. hadda Israel oo isku muujin jirtay ka hor 7 Oktoobar ee sanadkii hore awoodda tiknoolajiyadda iyo militariga ee bariga dhexe ugu sarreysa ayaa si dhaqso leh waxa sumcadeedu ku burburiyay dhaqaaqyada iska caabinta ee taageerta dowladda Iran, kuwaas oo muddo kooban ku guuleystay inay fashalayaan nidaamyadii difaaca Israel ee Tel Aviv ay u muujinaysay kuwa ugu wanaagsan caalamka. dhibaatada ay wajahday Israel ayaa in xal u heli weyday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maalin walba lagu weeraro gudaha Israel ilaa lagu qarxiyay gurigii Netanyahu. Israel waxay u aragtaa inay ka heli karto Ukraine nidaamyada difaaca iyo habab sir ah oo u suurageliyay Ukraine inay ka hortagto diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushku uu ku weeraro. tan oo la xiriirta inay Ukraine ku guuleysatay horumarinteeda difaaca diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. bishii Oktoobar markii ahayd 10 sanadkan 2024 waxaa socdaal qarsoodi ah ku tagay Ukraine saraakiil sarsare oo ka tirsan sirdoonka Israel ee Mossad, kuwaas oo Kiev kala kulmay xubno ka mid ah saraakiisha sirdoonka iyo militariga Ukraine. ujeedadu waa inay hesho Israel tiknoolajiyad iyo sir ka caawin karta sidii ugu hortagi lahayd diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee u bedelay dhulka Israel ay haysato mid u muuqda dhul laga barakacay sabab la xiriira in aan wadooyinka iyo goobaha la isugu imaan jiray aysan hadii cid isugu imaan. dadkuna waxay maalin walba saacado ka mid ah ay galayaan goobo gabaada sabab la xiriira dhawaaqa ka diga gantaalada iyo weerarada diyaaradaha duuliyaha lahayn ayaa saacad walba ka shidma gudaha Israel, sababtoo ah dhaqaaqyada iska caabinta ayaa si joogto ah u weerara Israel waqtigan. maadaama ay Ukraine iska caabisay diyaarada la mid ah kuwa Israel ay ku dhul qabto ee Iran ay soo saarto, sababtoo ah Ruushku inta badan wuxuu adeegsadaa diyaarado ay soo saarto Iran, waxayna Israel doonaysaa inay ka hesho sirta iska caabinta Ukraine. taa beddelkeedina waxay Israel siinaysaa sirdoonka Ukraine xog la xiriirta saraakiisha Ruushka, ganacsatada xiriirka la leh Putin ay saameynta ku leh siyaasadda iyo siro kale oo muhiimad u leh Ukraine, sida ay soo bandhigtay shabakadda ka waranta arrimaha militariga iyo sirdoonka ee Intelligence Online. Ukraine waxaa la sheegay inay u ballan qaaday dhinaca Israel inay ka caawin doonaan siday uga hortagi lahayd diyaaradaha duuliyaha lahayn ee iska caabinta ay ku weerarto gudaha Israel. iskaashigan hadda xoogeystay ee Israel iyo Ukraine waxay warbixintu sheegtay inay ka careysiisay Ruushka oo hadda dhinaciisa doonaya inuu xoojiyo awoodda tiknoolajiyadda oo ay ka mid tahay dayax gacmeedka iyo nidaamyada lagu hago gantaalada iyo diyaaradaha oo uu siinayo ururka Hezbollah oo si joogto ah hadda u weerara Israel iyo kooxda Xuutiyiinta ee Yemen. xaaladdan waxay kala fogeynaysaa Ruushka oo u arkaya Israel cadow la safan Ukraine. markaan ka soo tagno xaqiiqooyinka kore aan isweydiino suuragal ma tahay inuu waqtigan Ruushku ku taageero Israel qorshaha ay ku ballaarinayso dagaalka bariga dhexe. madaxweynaha Ruushka wuxuu si cad u sheegay inay ka soo horjeedaan ballaarinta dagaalka ee Israel, markaasna Putin wuxuu ku baaqay in loo baahan yahay in Israel joojiso isku dayga ay dagaalka ugu rogayso mid wada gaara bariga dhexe. wuxuuna Putin u diray Tel Aviv wakiilo ka socda oo la sheegay in Netanyahu la kulmeen maalmo kadib markii duulaanka dhulka Israel ay ka bilowday dhulka Lebanon, gaar ahaan koonfurta dalka Lebanon. sida laga soo xigtay wargeyska The Times of Israel, wakiilada ka socda Putin waxay fariin ay ka sideen u gudbiyeen Netanyahu, iyadoo fariintana lagu sheegay in Ruushku uu ku cadeeyay inuu ka soo horjeedo ballaarinta dagaalka ee Israel. waqtigan maxay Israel ugu celcelinaysaa magaca Ruushka? toddobaadyadii ugu dambeeyay Israel ayaa sare u qaaday inay sheegto magaca Ruushka iyagoo u soo jeedinaya inuu Ruushku gacan ka siiyo sidii wadaxaajood loola geli lahaa ururka Hezbollah iyo inuu Ruushku gacan ka siiyo Israel joojinta saadka iyo hubka uga imaanaya Hezbollah dhinaca Syria oo Ruushku saldhigyo ku leeyahay. afhayeenka Kremlin-ka oo ah halka uu ku yaala xafiiska Putin, Dmitry Peskov, ayaa jimcihii toddobaadkii hore wariyaasha waxay weydiiyeen su'aal la xiriirta baaqa uga imaanaya dhinaca Israel,
wuxuu sheegay in ruushku diyaar u yahay inuu door ku yeesho joojinta dagaalka iyo wadaxaajoodiyada, balse wuxuu ku xiray shuruud taas oo in Israel ay doonayso wadaxaajood dhab ah. dhinaca kale, ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha ruushka u jooga Syria Alexander Levernatov ayaa hadal uu warbaahinta siiyay Arbacadii toddobaadkan. wuxuu sheegay inaysan waxba ka jirin wararka ay baahinayaan warbaahinta Israel la xiriira inuu ruushku qaadanayo door dhexdhexaadina si loo joojiyo dagaalka Lubnaan. waxa kale oo si cad u sheegay in joogitaanka ciidanka ruushka ee dhulka Syria inaysan shaqadooda ahayn inay joojiyaan waxyaabaha u socda dhinaca Lubnaan, isagoo markaa ka jawaabayay baaqa Israel ay ku dalbanaysay in ciidamada ruushku ay ka caawiyaan sidii loo joojin lahaa saadka iyo hubka Xisbullah uga imaanaya dhinaca Syria, iyadoo kuma marsiyoonaysa in tallaabada ay ka dhalanayso in Xisbullah lagu cadaadiyo inay ogolaato heshiis. sargaalkan ayaa sidoo kale sheegay in Israel ay doonayso in heshiis loo bedelo waxa iyada danta ugu jirto. xaaladda noocaana uusan doonin ruushku inuu ku lug yeesho, maadaama heshiiska ay doonayso Israel uu si weyn u weeqayo awoodda Xisbullah. ergeyga Putin ee Syria ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay duqeyn ka dhacday meel aan ka fogeyn saldhigga ciidanka ruushku uu ku leeyahay Syria oo ay fuliyeen diyaaradaha Israel. wuxuu sheegay weerarka inaysan wax khasaaraha ka soo gaarin saldhigga, ayna siiyeen Israel digniin kama dambaysa, iyagoo markaa u sheegay haddii mar kale ay tan samaysay Israel inay dhaxli doonto cawaaqib xun oo ay ka dhalan karto xataa saameyn gaarta gudaha Israel. hadalladan kadib sidoo kale waxaa la arkay toddobaadkii hore in ilaa 3 xarumood inay ciidamada ruushku ka samaysteen meel aan ka fogeyn xadka dhulka Syria ee buuraha Israel ay ka qabsatay Syria ee Golan Heights. dhaqaaqan oo loo qaatay mid uu ruushku uga hortagayo isku dayga ay bilaabeen ciidanka Israel in gudaha uu galaan dhulka Syria, halkii Israel ay doonaysay in loo xiro xadka oo laga hortago hubka gaaraya Xisbullah, iyadoo la aaminsan yahay tan iyo inta Xisbullah uu furan yahay saadka uga imaanaya dhinaca Syria inay ku adkaanayso Israel inay guul ka gaarto iyo inay ururka Xisbullah ku qasbanaan doonaan inay qaataan heshiis aan dantooda ahayn. ayaa hadda waxaa la arkay in ruushku cadaadiska uu ku kordhiyay dhinaca Israel sababa la xiriira in ciidamada Israel lagu soo dhaweeyay aagaga buuraha Golan, halka calanka ruushkana laga taagay meel ay arki karaan ciidamada Israel ee ku sugan buuraha Golan. hadallada saraakiisha sare ee ruushka iyo marxaladda waqtigan oo loo arkay in xiriirka ruushka iyo Iran oo taageera dhaqaaqyada bariga dhexe ay la dagaalamayso Israel inuu wanaagsan yahay, waxay ina siinayaan tilmaamta inaysan jirin wax taageera oo Israel ay ka heli karto ruushka si uu u joojiyo saadka uga imaanaya Xisbullah dhinaca Syria. warbixintan ayaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa. waxaan kaga tegayaa fikradihiina, waxaana kusoo bandhigi kartaan qaybta falcelinta. sidaas iyo amaano Allah.